dhammaan mas'uuliyiinta sharafta mudan ee ka socda xukuumadda federaalka Soomaaliya, mas'uuliyiinta jaamacadda Muqdisho, mas'uuliyiinta dhammaan jaamacadaha saaxiibaha nahay, aqoonyahanka Soomaaliyeed, dhammaan marti sharafta mar kale mar labaad waxaanu ku soo dhaweynaynaa aqoon isweydaarsiga sanadlaha shanaad ee cilmi baarista Soomaaliyeed oo sanadkan markii shanaad aan qabanayno. waxaan idin leenahay soo dhawaada mar labaad. waxaanu furanaynaa gudagalaynaa dhammaan barnaamijyadeennii maanta aan ugu talagalnay oo maanta kow noo ah. shirkan oo noo socon doona muddo 3 beri ah. ilaahay hadduu yidhaahdo maantana noo bilaaban doono si rasmi ah. intaan u gudagelin barnaamijka waxaanu ku furan doonaa aayaad min kitaabillaah oo inoo akhriya walaalkeen cabdimuncim xuseen. soo dhawow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. أدهم سيها عبد المنعم آيات من كتاب الله وإنه أخرين. حتى وحان رجال كسر دوينيا كلمة قالة كلمة مناسبة ونوس وجيرين دون اسمها معركة علم باريس الصومالية قيصوص مصطفى عبد الله علي مصطفى فيروز. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا ورئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان كسوق قيبقلياشا برنامج كان كسوق قيبقلي وهو وزير الدولة وزارة وحبرشة الدهية تعليم السرع أقاسمها تعليم السرع مسؤولين جامعات مقدشو مسؤولين كالدول جامعاتها ضلكة مسؤولين تدلدها وحبرشة guud ahaan aqoon-yahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee barnaamijka ka soo qayb galay ee goobta jooga bahda saxaafadda dhammaantiin baa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu horreyn farxad iyo raynrayn ayay noo tahay in uu maanta halkan inoogu furmo aqoon isweydaarsiga sanadlaha shanaad ee cilmi baarista Soomaaliyeed. aqoon isweydaarsigan oo sanadla ah waxaa soo qaban qaadaya macadka cilmi baarista Soomaaliyeed oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho. waxaa la soo bilaabay 2014 si joogto ah ayaa sanad kasta loo qabtaa. sanadkan waa kiisii shanaad. ku talagalku siduu inoo yahay jadwalada aad haysataan aad ku aragteen wuxuu inoo socon doonaa 3 maalmood. waxaan rajaynayaa 3daas maalmood in maadaama ay tahay 3 maalmood oo cilmi badan aynu isweydaarsan doono, aqoon iyo waayo aragnimo kala duwan aynu wadaagi doono. waa madal cilmiyeed fursad inoo ah sidii aqoonteena iyo waayo aragnimadeena aan u kordhin lahayn maadaama goobta fadhiya ay yihiin aqoon-yahankii Soomaaliyeed ee bulshada Soomaaliyeed ay wax ka sugaysay. aqoon isweydaarsigan sanadlaha ama shir cilmiyeedkan sanadlaha sanadkan halku dhegiisa aan u dooranay ee laga dhigay sida aad ku aragtaan qoraalada aad haysataan waxa weeyaan aqoon u adeegta kobcinta adkaysiga iyo soo kabashada. sidaynu ognahay bulshadeennan Soomaaliyeed waxay muujisay adkaysigaas ama resilience-ka waxaa afka Ingiriisiga lagu yiraahdo. culaysyo badan ayaa ummadan ku dhacay markaynu eegno muddooyinkii ina soo dhaafay. culeysyadaas faraha badan ee ku dhacay iyo haddana ummaddu maanta meesha ay marayso
qof walba wuxuu ka markhaati kacayaa inay tahay adkaysi ay u adkaysatay dhibaatadii iyo culayskii iyo colaadihii haddana ummad jirta oo socota oo nool oo horumar sii samaynaysa waxyaabo badani hadday ka hadlaysan yihiinna wax kaloo badani ay u toosan yihiin marka waa adkaysigaasi aynu marxaladihii dhibka badnaa aynu ku soo dhaafnay aynu ku soo moodnay wuxuu inooga baahan yahay in la sii kobciyo daraasadaha iyo cilmi baarisaha kala duwan ee laga soo jeedin doono goobtan waxaan rajaynaynaa inay qayb ka noqdaan sidii loo sii kobcin lahaa adkaysigaas dhinacyo ka midana ay taabanayaan oo dhinacyada taariikhda taabanaya ay aada ugu horeeyaan sidoo kaleeto waxaynu ku jirnaa marxalad soo kabashaa dhaawacyadii hore ina gaadhay aynu ka soo kabanayno kufitaankii aynu hore u kufnay aynu ka istaagayno hore u soconayno aynu rabno inaynu qayrkeen hiigsanno aynu dhaafno ama aynu gaadhno marka soo kabashadaasi iyaduna waxay u baahan tahay kobcin bay u baahan tahay wax hal mar soo wada laabanaya maaha daraasadaha iyo cilmi baarisaha kala duwan ee goobtan laga soo jeedin doonaa waxaan rajaynaynaa qayb ka mida iyaguna inay u adeegaan soo kabashadaas sidii loo sii kobcin lahaa mudanayaal iyo marwooyin saddexda maalmood aynu wada joogno goobtan waxaa laga soo jeedin doonaa 34 daraasadood oo kala duwan aqoon-yahanada kala duwan ay soo jeedin doonaan ama ha noqoto waxaa loo yaqaano paper presentation iyadoo cilmi baadhis ay soo jeediyaan ama ha noqoto iyadoo ah aqoon wadaag ama panel discussion 34 daraasadood dhammaantood waxay si toosa xiriir u leeyihiin dhinaca adkaysiga bulshada Soomaaliyeed iyo dhinaca soo kabashada intaba qaarkood waxay ka sheekeynayaan taariikhdeenii horeeto oo ah waxyaabaha keenay adkaysigan qaarkood waxay ka hadlayaan dowlad dhisidda iyo state building aynu ku jirno iyo dhinacyo kala duwan ay ka taabanayaan waxaa kaloo ka mid iyadana keynote speech inay mas-uuliyiin aqoon-yahano kala duwan ay nagala hadli doonaan arrimo muhiima marka saddexdaas maalmood waxaan rajaynaynaa jadwalku waa cidhiidhi sida ka muuqata saa darteed waqtiga mid walbaba loogu talagalay inaan sidiisii u qaadano aan aadna u ilaalino ayaan rajaynaynaa mar kale hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa kasoo qaybgalkiina aad goobtan timaadeen sharaf uu noo yahay mahadnaq gaara waxaan sii siinayaa aqoon-yahanada kala duwan daraasadahaas ka soo shaqaynayay 6 bilood ee lasoo dhaafay oo soo bilaabay hawshooda bishii May iyo June iyo soo bilaabay oo maanta midhaha aynu meeshan ku joogno iyo aqoonta aynu ku wadaagi doono dadaal badan iyo waqti badan soo geliyay sidoo kale dhammaantiinba waqtiga aad noo soo hurteen iyo saddexda maalmood aynu wada joogi doono aad iyo aadna waad ugu mahadsantihiin wixii yar dhaliil ah ee soo baxana waxaan rajaynaynaa inaad noo dul qaadataan aad iyo aadna waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay agaasimaha macadka cilmi baarista Soomaaliyeed ISOS Ustaad Mustafa Cabdullaahi Cali Fayruus haddana waxaan majaal ku soo dhaweynaa oo jecel inaad ila soo dhaweysaan Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi Baadiyo oo ah gudoomiyaha guddiga sare ee jaamacadda khabiir sare ee cilmi baarista Soomaaliyeed la taliyaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya arrimaha dib u heshiisiinta fadlan Dr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فرحت وين إيه تهاي وارحين ولا السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ملايكتان ما نعبرك هرب إنسان أقول فرح سنة هاي إن أنا أبكو سنة كيشنات معك آيسوس علم بارستو وقبرها سنوات كيسي معايا waxaan xasuustaa markii la bilaabay macadka fikirka ku dhisnaa ayaan xasuustaa waqti aan haba yaraatay saas loo fikiray ayaa waxaan u fikirnay Soomaaliya in bal macad cilmi baaris ah Soomaali aqligeeda marlabaad ku keena in laga shaqeeyo ayaan xasuustaa waxay ahayd markii jaamacadda la bilaabay 2 sano ka bacdi ayaan macadkan loo fikiray in la sameeyo طبعا هنقاط في سوماليا مال بمراي لكن waxaan rabnaa inaan ka hadalno marka macadkan sababta loo sameeyay asalkii iyo waajibka uu gudanayo intay ag tahay inaan isla fahmo
sababta loo sameeyay waxaa waaye Soomaaliya ma Afrika oo kulli geed 1957 ayaa la bilaabay wax lagu magacaabo African States in Afrika la darso waa intaan gobonimada Afrika inta badan aysan qaadanin 1960 waxaa dara ka bacdi bilowday dawlad in loo darso iyo gobol Afrika loo darso daraasooyinka marka Soomaaliya marka laga hadlayo Soomaaliya waxay ka mid ahayd oo lagu daray Ethiopian States Ethiopia marka la dasaayo Soomaaliya qayb ka mid ah Somali States waxa la yiraahdo marka ma jiro 1978 markii Soomaaliya Ethiopia dagaalkii oo ku soo dhamaaday si annaka aan noo fiicnayn oo ku soo dhamaaday ayaa aqoon-yahano Soomaaliyeed iyo dad kale oo ajnabi ahaayo Soomaaliya wax ku darsay oo PhD ku sameeyay 15 ayagoo ahay waxay go'aansadeen marka inay sameeyaan wax la yiraahdo in Soomaaliya la darso oo si gaar ah loo bixiyo oo shir Soomaali lagu darsan la sameeyo saasa marka waxa la sameeyay shirku ugu horeeyay ee ku saabsanaa Somali States waxaa madax looga dhigay Ilaahay u naxariista Professor Hussein Tanzani ayaa madax u ahay laga bilaabo waqtigaas marka Soomaaliya in la darsaa wax badan iska bedelay maxaa yeelay af Soomaaliga la qoray waqtiga waxaa la sameeyay akademiyada cilmi baarista la sameeyay waxaa bilaabatay Soomaali badan oo aqoon-yahano noqdaan caalamka wax ka soo bartaan waxaa bilaabatay laakiin Soomaaliya maalinta ka dambaysa waxaad ogtihiin haddana hoos u soo socoto 78 wixii ka dambeeyay burburka ayaa Soomaaliya ku dhacay aqliga Soomaalida ee dumay dad badan oo Soomaali ah markay fiirinayaan burburkan maxaa keenay marka la fiirsho inta badan siyaasiyiinta ay u saariyaan siyaasiyiin istirartay kabacdan waxaa la yiraahdaa qabiilada isku dirreen waxaan nalahayn sheegaan laakiin waxaan inaan sheegno maadaama halkan ay fadhiyaan dhalinyaro aqoon-yahano iyo jiilka mustaqbalka la rabo in aqli cusub la yimaadaan halkan ay fadhiyaan waa inay fahmaan waxa ugu horeeya dumay waa aqliga iyo aqoonta la dubtay waxa waaye falsafad iyo fikra ka dambaysa burburka Soomaaliyeed faham la'aan bulshada ka dambaysay burburka Soomaaliyeed sababta dawladda isma laadahana waxa ka dambaysa aqal xumo iyo aqoon xumi si khaldan loogu fasiro dadka Soomaaliyeed sida ay muxuu ahaa ay u fahmi lahaayeen bulshadooda iyo noloshooda ilaa haddana mushkiladana haysata waxa waaye oo challengeska ama taxadiyaadka ugu weyn dalkeena haysta waa challengeska dawladnimada waa governance ma aha dawladnimo markaan ka hadlayno ilaa ma jeedno dawladda xataa federaalka ma aha kuwa gobolka ma aha waa maamul oo dhan ku mid governance mushkilada naga haysata taxadiga ugu weyn haysta waa governance sida wax loo xukumaa waxay ku xiran tahay sharci in la ilaaliyo waxay ku xiran tahay in muwaadinimo la rumeeyo ku xiran dadku inay muwaadiniin yihiin ay ku xiran waxay ku xiran dadku inay u sameeyeen shaqada iyo sharafta iyo xuquuqda iyo waajibaadka ay u sameeyeen ka bilaabata dadkeena waa ogtihiin waxa ku dhex jiraan ilaa hadda waxa ku dhex jiraan haddaan reer hebel ma ayaa dhex jiraan reer hebelna dawladda cusub casriga ee la yiraahdo modern state reer hebel kuma dhisna ma lagu dhisi karo marka waxaan sax ahaynaa aasaas looga dhigayo dadkii waxaan marka rabaa mar haddaan ka hadlayno meel aqoon-yahan looga ay wada joogaan oo halkaas ugu timideen sanadkii shanaad halkaan isugu yimid oo halka joogaa ay tahay dhalinyaro cilmi baaris ka soo shaqeeyay iyo aqoon-yahano kala duwan ay yihiin waa inaan fahamnaa inay laga maarmaan tahay haddaan Soomaali ka hadlayno in la toosiyo aan rabno waan aqliga u toosino waan aqoon ku toosino marka ugu horeysa fikirka waa in la bedelaa fikirka hadda jira fikirkii dawladda ugu noqohay ama la badbaadinayo fikirkaanu ma saadabtay waajibka inuu yaalo dhamaanteen waxa waaye inaan sida hore aan u fikirno inaan dib u muraajacayno waxa la wixii la sheegay nagala sheegay iyo waxa la waxa soo sheegay in la muraajaciyo raba dib loogu noqdo oo la keenaa aqli aan nabad iyo nolol ku gaari karno nabad iyo nolol ma jiro shacaarka dawladda ma jiro dawladda shacaarka ayaa iskale laakiin waxa loo jeedaa nabad iyo nolol waa iska caadi bini'aadamka caadiga ah laga rabaa Soomaal ayaa laga rabaa waxaa la rabaa marka muxuu ahaa waxaa la rabaa Soomaaliya waxay lama tahay bini'aadamka dadka Soomaaliyeed dadka ay lamid yihiin dadka in laga sooco oo la yiraahdo Soomaaliya waxay dawladda noqonaysa qabiil Soomaaliya waxay dawladda noqonaysa fakhri Soomaaliya waxa si la noqonaysa dawladda noqonaysa waa tafsiir khaldan waaye marka waxaa la rabaa maadaama aad aqoon-yahanadii Soomaali studies halka isugu timideen darasada Soomaaliyeed inaad Soomaaliya dhibka haystaa in waxaa la rabaa loo fahmo sida saxda ah oo ah waxa naga hadlaysan xaqiiqadoodu maxay tahay xagee baa cudurku naga hayaa diinta islaamka aan si khaldan u isticmaalno qabiilka baan si khaldan u isticmaalno Soomaalida si khaldan u isticmaalno
calaaqada ka dhaxaysa qabiilkii iyo Soomaalnimada Islaamnimada ma saxal dad u fahamsanahay aasaaska taxadigan haysta waxa waaye inaan aqligeena saxno oon keeno fahmi saxiixa ayaa aas u ah ila tahay Soomaali studies la sameeyo aniga aan hadal ku dheerahay waxaan aad ugu hambalyeeyaa macadka madaxdiisa aqoon-yahanada halkan fadhiya iyo dhalinyarada la rabo oo aan rajaynayo inay la yimaadaan aqli ka bedelan aqliga aabayaashay oo mataqaana jid cusub ay u faraan oo aqooneed ay u faraan dadka Soomaaliyeed Soomaaliya marka dhaqaalaha ay leedahay khayraadka badda ku jira iyo cirka iyo dhulka khayraadkeena meel kasta yaala marka la fiirshay juqraafiga meesha caalamkan ugu naalo marka la fiiriyo waxaan fursad u haysanaa inaan dawladaha ugu muhiimsan caalamka inaan ka mid noqono fursadaas aan haysanaa laakiin waxay ku xiran tahay caqli sax ah la nimaado caqli aan caalam kula mucaamil karno caqli aan dhexdayna kula mucaamil karno caqli ku dhisan cilmi oon khayraadkeena ku soo saarnaa la nimaado laga maarmaan waaye marka aan ku wada mahadsan kulligeen wada salaamaya hadalkii inta soo gabagabeynaya anigoo ku hadlaya magaca guddoonka jaamacadda anoo ku hadlaayana waa idin hambalyeynaya macadkana waa hambalyeynaya waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay doctor cabdiraxmaan macalin cabdullaahi baadiyo kelimadaas qiimaha badan uu noo soo jeediyey haddana waxaan jeclahay inay la soo dhaweysaan kelimada la taliyaha guddoomiyaha jaamacadda muqdisho professor doctor maxamed xuseen ciise liibaan falyatafadal professor السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سلام يا معالي وزير الدولة على التعليم السريع لكن أجاسمها التعليم السريع ضمان مسؤولية للجوجة هي خاصة والسلام يا وحان السلام يا مدحنا جامعتها صحيحا أن كفانا من للجوجة وما تعلم باريستا للجوجة السلام يا waxaan aad ugu mahadcelinayaa si qalbiga laaba ugu mahadcelinayaa hay-adaha ama waxaan dhihi karaa bangiyada dahabshiil iyo bangiga international Somali Bank ee ka qayb qaatay taabigelinta cilmi baarista laana haddii iskaashado bahda tacliinta iyo cilmi baarista haddii dhinaca xoog la iskaashado wax walba qurux badan ayaa ka soo baxaya aad baan ugu mahadcelinaynaa أنا أقول هذا ينبغي على الدنيا جامعة مقدشو إبراهيم محمد مرسل يو اسمه حسن شاف حسن يضمن وجودية المسؤولين في الدول جامعة مقدشو وحن آل فرع سنة هاي إن شويه الشهر معهد الدراسات الصومالية جامعة إن المنطقة مجمع يعني مامور جامعة نقول في الأسر الأولى وحنا فحدي anigu inaan maalintaa la ii wakiishay shirweynihii koowaadna inaan aniga magaca jaamacadda aan ku hadlo ii wakiishay maanta marka inaan shirweynihii shanaadna inaan joogo waa cumrigaana waay insha allah waxaan rajaynaynaa inaan waqti kalena insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inaan joogo run ahaantii waa silsilad oo isdaba socota oo la leeyahay mar walbaba sida hadda doctor cabdiraxmaan macalin baadiyo uu tilmaamay in maxaa mar walbaba si cilmiyeysan inaan u daraasayno mashaakilkeena Soomaalida inaan u daraasayno marka hore Soomaalinimada kadib hadda tinka ama mowduuca waxaa laga dhigtay dib u kabasho ayaa lagu jiraa iyo adkaysi maxaa xoojin kara maxaa dhinacyadee xoogga la saari karaa in la daraaseeyo arrinta oo si cilmi loo daraaseeyo ayay u baahan tahay waxaad arkaysaa Soomaalida hadda kolkii doodaha qaarkood ee socoto ha noqoto doodo siyaasi ama dhaqaale mise mid bulshadeed oo dhaqaale ha noqoto dadka qaarkood si kore unbaa loo niqaashaa niqaasha mar walba waxaa fiican inuu ku salaysan yahay cilmi inuu ka kalahayo ama ka talaabada ka qaadayo cilmi baaris uu ku socdo waxaa la rabaa aqoonyahanka mar walbaba haddii fikirku ka dhiibanayo duruufta maanta taagan iyo duruufta Soomaalida haysta dhinac kastaba ha ahaado ama waxa dhaliilo ama waxa yiraahdo meesha way fiican tahay si inuu ilaaliyo mowduuciyada oo mar walbana xagga cilmiga mar walba uu daraasad ku sameeyo
marka tan waxay ka mid tahay waxyaalaha aadka yani u weyn saa la socotaan shirarka cilmigu waxa weeye waa nuxur la soo gaabiyey ma aha muxaadaraad oo dadka loo jeedinayo qofka waxaa laga yaabaa inuu 20 daqiiqo camal uu haysto ama nisfi saac wuxuu soo gudbinayaa عصارة فكري يعني اللب لبنتي سو غدبنايا marka waxa weeye waxa fahmaya ka qaadanayana dadka elite ka qaadanaya marka cilmi baaristu sidaas mar walba u socota waxaad arkaysaa qof batig ku soo goosanaya shir inuu ka soo qayb galo oo intaas ku soconaya loo sameynaya laakiin waa wax aad u kooban waxa laga yaabaa dadka caamadu inaysan aad u fahmin oo yiraahdeen maxaa dhacay laakiin waa meesha ummadaha laga saxo waa meesha cilmi baarisyada marka ay soo baxaan dawladuhu ay ka qaataan shidaalka ay ka qaadanayaan wax ku saxeelhaayeen marka aad iyo aad baan mataqaanaa idinku mahadcelinayaa waxaana leeyahay insha Allah maalmahan saddexda ah in afkaarta aad soo gudbin doontaan ay noqoto wax hadda iyo beriba Soomaaliya wax weyn oo u noqda ayaan idin rajaynayaa waxaan rabaa inaan yani anigoo aad ugu faraxsan magaca jaamacadda inaan ku soo dhaweeyo agaasimaha tacliinta sare Ustaad Ismaaciil Yuusuf Macalin si uu ka dibna wasiirka ugu soo dhaweeyo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وزير الدولة وزارة الحرب الشهيدة تعليم السرد مولانا عبد الرحمن محمد عبد الجابري باسمها بدونها جامعة مقدشو مولانا حسن الشيخ حسن لفريها جامعة بدونها مولانا أستاذ ليبان أستاذ مصطفى فيروز بدونها معك دراسات الصومالية مدحت جامعة مقدشو مدحت جامعة درجة كتيرة بعد الصحافة أقويانا كفرية قفل مجرى مصر الشفر عليه الصلاة والسلام أنا كوزارة أهم فرحتنا إلى أن نشكر كسر الجنة من باكستان ممكن سوزيك الجو أسرع كلمة بدله لكن علم باكستان يمكن وين يكون هنا محايا أنا كوزارة وحبرت تعليم سنة بروفي تعليم عالية وحقول تعليم العالم بحث علمي بحث علمي جالس أنا وحقول إنه يهي وزارة دين مركا وحنا جينا إن إسكاشي أن تسمع محل البالسة وننتهي إن هذا مركبة القرن كانت حتى لو نسيت إنما البالسة أي سماع وهنا اللغة إن مش كيلو أنا سوق كيلو البالسة يقول قطو واحد من الدولة لكن بوقت البالسة لقوا هذه مش قفوا ورئيسي يعني أنا لقيت فايدين جيت تصعد فايدين واحد كريسما كهرنا البالسة السنين يناسبك عشان قاب كيلو تمينا جيت صوصة فايدين هاي كيف كان يعلو وحن حكم بسول لينيا وزير الدولة وزارة الحرية تعليم السريع مولانا عبد الرحمن محمود جابري بريفرال مع الوزير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم مدحت الجامعة لها كارهان مدحت الجامعة مقدشو وهو الرئيس سميها مدونيها الجامعة لتليها أقاسمها معك دراسات صوماليا أستاذ مصطفى iyo aqoon-yahanada kale ee Soomaaliyeed kuwa dalka jooga iyo kuwa soo safray barnaamijkan dhalinyarada waxbaratay jaamacadaha dalka kala yimid iyo qof walba halkan u yimid inuu ka qayb galo barnaamijkan ama kulankii shanaad ee daraasaadka macadka Soomaaliyeed jaamacadda Muqdisho waxaan idinku salaamay salaanta islaamka salaan kadib sharaf ay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo kulankan oo ah kulan ahmiyad gaar ah u leh waxbarashada iyo bahda waxbarashada run ahaantii marka u horeysa waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo
agaasimaha macadka iyo guud ahaan jaamacadda muqdisho oo ka wasaarad ahaan aan aaminsanahay in ay ka mid tahay jaamacadaha hormuudka u ah dalka oo mar walba aan aaminsanahay in lagu dhisay aqoon Soomaaliyeed iyo xilli loo baahnaana la dhisay maantana aan guranayna mirihii iyo caqliga soo gelin waxaa sidaas iyo si lamid ah aan ka rajaynaynaa ama aan aaminsanahay jaamacadaha dalka iyagana kulley inay la imaan doonaan abuurkaas haddaan u soo laabto mawduuca maanta halkan loo joogo run ahaantii markii la xamalayo Soomaalida ama Soomaalidu waxay tiraahdaa fuliixantii ma mooga waxaana lagu hantaa inaan nahay ummad hadalka u fiican oo oral society ah qoraalka xaggiisa markii laga hadlayo daraasadaha Soomaaliya laga sameeyo inta badan waxaa laga soo xigtaa John iyo Frank iyo rag kale ayaa laga soo xigtaa waxaa marka laga maarmaan noqotay in la helo macad sidaan oo kale ah magaceena iyo muuqaalkeena ku soo baxa wax ka qora dhibaatooyinka na haysta maanta gudoomiyihii dib u heshiisiinta iyo la taliyihii ra'iisul wasaaraha ka hadlay dhibka dalkan ku dhacay wuxuu intiisa badan salka ku hayaa fahamka laga qabo dowladnimada Soomaaliya iyo guud ahaanba wada noolaanshaha bulsho ee ummadda Soomaaliyeed arrimaha noocaas oo kale ah waa arrimo ijtimaaci ah waa arrimo u baahan dadka aqoon-yahanada ah in ay si qoto dheer u fiiriyaan waxaa nasiib darro ah marka inta badan maadaama aan oral society noqonnay dadkeennana ay u nugul yihiin dhegaysiga idaacadaha iyo telefishinada dalka ka jira in mararka qaarkood aysan helin macluumaadkii rasmiga ahaa iyo problemada haysta ama mashaakilaadka dalka ka jira inaysan si cilmiyeysan aysan u gaarin waxaa laga yaabaa siyaasiyiin gaar ah ama qof fursad u helay inuu TV ka hadlo ama idaacad ka hadlo waxa ay asaga la tahay inuu gudbiyo taas oo inta badanna ay noqoto halhayska bulshada oo ah fahamka dowladnimada markaas hebel ayaa saan yiri siyaasi hebel ayaa saan yiri dhibka kaliya oo haysta waxaan uga bixi karnaa aragtida shakhsi iyo siyaasi markaas ayada hadlay run ahaantii waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan horta inay fahmaan mashaakilaadka dalkan ka jira ama dowladnimada xilligii la qaadanayay ama isticmaalka ka hor in uu ahaa mashaakilaad ijtimaaci ah dalkana labada arrimood oo runtii aan isleeyahay dhibaatada xoogga la soo gaarsiiyay waxay ahayd sida loo wadaago khayraadka iyo siyaasadda wax kaloo ummadda Soomaaliyeed u dhaxay ma jiraan mar haddaan saa idhi dabcan waa ogtihiin dad reer guuraa ah oo wax ku qaybsan jiray biyaha iyo cawska kala xoogi jiray ceelasha iyo cawska yaroo roobka mataqaanaaye ilaahay uu keenay meel ku beeray yaa waxaa la yidhi waxaad noqoteen dowlad khayraadkiina idinka maamusha dowladnimadiinii wadaaga xadaarad horoo markaas aan ka ahayn midda culummada ay noo keeneen oo diinteenna islaamka xaniifka ku qotantay oo akhlaaqiyaadkaan haysanno iyo inta yaroo aad arkaysaan ilaahay mataqaanaa nagu manaystay ma ogiin wax kaloo markaas dowladnimo ah ama nidaam dowladeed oo markaa jiray uusan jirin yaa gacanta noo soo galay waxaa marka nasiib darro noqotay in mashaakilaadkeenni mar walba ay noqotay inaan ku xallinno qaab aan cilmi ahayn oo inta badan ku khotama rabitaanka ama xisbi siyaasadeed ama shakhsi siyaasi ah rabitaankiisa waxaa marka aan rabaa inaan fursaddan kaga faa'iidaysto in ummadda Soomaaliyeed ay u dhaganuglaadaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed inay dhegaystaan dadka Soomaaliya caqligooda iyo waqtigooda geliyey inay ugu adeegaan aqoontooda waxaa laga yaabaa qofka aan dhegaysanayno inuusan ahayn qof xataa haysta shahaadada asaasiga ee primary-ga intuu soo istaago inuu ka hadlo cilmiga dhaqaalaha iyo dowlad wadaagga iyo khayraadka dalkan inaan dhegaysanin qof aqoon-yahana oo cumrigiisa 50 sano ilaa 60 sano ku bixiyey siduu uu baaritaan ugu samayn lahaa khayraad qaybsiga dalkan iyo sida khayraadkaba loo qaybsado iyo siyaasad wadaag iyo good governance ama maamul wanaag waqtigiisa ku lumiyey yaa waxaa laga yaabaa hadalkiisa inuusan wax macno u samayn shacabka Soomaaliyeed isla markaana qof aan aqoon u lahayn magac qabiil ama magac siyaasadeed ama magac xisbi wuxuu rabo watana in uu dadka helo marka waxaan rabaa horta inaan u hambaliyeeyo macadka inaan kala shaqeyno aqoon-yahanada Soomaaliyeed ama jaamacadaha ummadda Soomaaliyeed oo dalkeena ku yaala
inaan kala shaqayno sidii hal abuurkooda iyo fikirkooda ku dhisan aqoonta siduu dalka iyo dadka u gaaraya mar haddaan intaa idhaahdo waxaa sidaa iyo si la mida laga maarmaana marka aqoon-yahanka soomaaliyeed ayagana inay ogaadaan in burburka dalkan soo gaara inay qayb ka yihiin oo ayagana aysan ka madax bannaanin maxaa yeelay haddii annaga aqoonteennii aan qabiil ku noqonnay haddaan aqoonteennii xisbiyo iyo afkaar axsaab diini ah ku kala qaybsannay haddii qof walbo aqoon-yahana markuu wax qoraayo uu u qoraayo isagana annaga xisbi hebela ama annaga qabiil hebela aan ka dhex muuqanno taasna waxay keentay kalsoonidii lagu qabi karay aqoon-yahanka soomaaliyeed inuu meesha ka baxo oo macnaheeda ay noqotay in qof qabqabla ah ama aan aqoon badan lahayn fursad ilaahay siiyey inuu ummadda soo hor istaago uu ku soo hor istaago anaa kaadida u soo cabbay iyo anaa dalkan wax ka ah iyo anaa laandheere ah iyo anaa kan ah markuu aan aragnay ay arkeen ummadda soomaaliyeed aqoon-yahan garab taagan oo boorsada u haya u turjumaya meel kasta la tagaaya yaa waxay halkaas keentay in kalsooni xumo ku dhacda shacabka soomaaliyeed aqoon-yahanka waxaa la rabaa inuu ilaaliyo qiyamka iyo wax uu huwan yahay 50 sano oo meel la fadhiyo oo cilmi baaris la sameeyo wax sahlan maaha yacni qof bini aadana cimrigiisii ama cimrul qaalibka bini aadamka oo 60 sano ah 50 sano ama 40 sano ka mid ah hadduu ku bixiyey inuu qalin iyo buug haysto inuu waqti geliyo isla markaana natiijada ay ku dhammaato qof jaahila inuu ag fadhiisto inuu masiirkii ummadda iyo arrimo noocaas oo kale ah uu mataqaanaa geliyo taa waxay keentay qabjab inuu ku dhaco dadka soomaaliyeed ayna keentay marka u dambaysa in hal abuurkii aqoon-yahanka soomaaliyeed inuusan wax saameynayeen maxaa yeelay taa ayaana marka keentay mararka qaarkood in aqoon-yahan soomaaliyeed oo waqti badan geliyay daraasad laga yaabo in uu aqoon iyo maskax iyo muruq iyo maalba geliyey inay saameyn ku dhex yeelan weyto dadka uu ka soo jeedo halka aan aragno bulshada kale caalamka qof professor ah ama qof aqoon-yahana markuu article qoro laga yaabo in waddankaas inuu khalkhal geliyo oo qoraalkiisaas ama dowladda markaa jirta ay ka qayliso ama ay wax ku qaataan oo wax ku saxaan marka waxaan rabnaa aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo jaamacadaha soomaaliyeed inay gaaraan heer ah qoraalladooda inay saameyn ku dhex yeeshaan bulshada soomaaliyeed marka u dambaysa dadka mustaqbalka leh waa dhallinyarada halkan fadhida dadka waddankan u hari doona dhexalkiisana waa dhallinyaro professorka hadaaya ka hadlay wixii soo khaldamay waa soo khaldameen laakiin waxaan aaminsanahay mar walba fursad fiican inaan leenahay fursaddaas oo noo sahli doonta in dalkeenna meeshuu hadda taagan yahay inuu horey uga sii socdo iyo in hadduu ilaahay kuu roon yahay aan helno fursad aan mar labaad ku saxno khaladaadkii dalkan ka dhacay waxaa laga maarmaana marka haddaan hadalkayga saa'irin in daraasadaha halkan ka soo baxa annaga ka wasaarad ahaan runtii waa soo dhowaynaynaa sidaa iyo si la midana waxaan gaadhsiin doonnaa hay-adaha dowladda oo ay qusayso cilmi baarisadan in ay uga faa'iideeyaan shacabka soomaaliyeed waxaa laga maarmaan ah in caqliga uu shaqeeyo in aqoonta la horumariyo in ay noqoto waxa aan ku wada hadlayno maxaa dan ugu jirto ummadda soomaaliyeed maxaa yeelay shacabka soomaaliyeed waxa ay naga sugayaan waa wax ka weyn in siyaasad loo wada hadlo waa wax ka weyn in mustaqbalka dalkan la badbaadiyo waxaan rajaynayaa cilmi baaristan halkan ka socota inay ku dhammaato si wanaagsan wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare mar labaad waxay xaqiijinaysaa waxa halkan ka soo baxa oo runtii aan aaminsannahay door fiican in ay ka qaadan doonto horumarka siduu agaasimaha sheegay xagga baxdan cilmiga waxaan rabnaa sidaa ay si lamid inaan ku hambaliyayno dadkii halkan ka soo shaqeeyey oo ah inta badan waxaa la sheegaa madaxda jaamacadaha iyo macaahidda laakiin dhallinyaradii xafladdan quruxda badan macadkan waqtiga geliyey habeenno u soo jeeday inaan uga mahad celinno sida ay uga soo qayb qaateen ugu dambeyn waxaan rabaa warkayga inaan kusoo gabagabeeyo anoo og inuu nagu soo biiray wasiirkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaan saadiq warfaa oo aan rajaynayo in asagana kelmadihiisa halkan ku habboonaa iyo barnaamijkiisa uu sii wadan doono keliya ka wasaarad ahaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay hambalyo waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabka soomaaliyeed wixii halkan ka soo baxo waa wax aqoon-yahano soomaaliyeed ay soo diyaariyeen wixii ka soo baxo dabcan fikirka qofka wax qoray hadduu wanaagsanaado oo dowladnimada iyo uhiilinta shacabka soomaaliyeed uu ku qotamana waxaan aaminsannahay in la barakeeyo la soo dhoweeyo wixii aad u aragtaan in ay xagaldaacin ku yihiin
jiritaankeena iyo horumarka soomaaliyana dabcan inaad ka dhiibaysaan oo mataqaanaa fikirkeena ka dhiibataan lana saxo aysan noqonin waxa walba in la daadiyo waa mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa in uu saddexda beri uu cilmi baarista socoto inay gurigeeda ku dhammaato insha allahu tacaala annagana ka wasaarad ahaan marka warbixinta soo dhammaatana waan insha allahu tacaala waan ka faa'iidaysan doonaa shirkii aan rabnay inaan furno si rasmi ayuu noogu furan yahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu